الله وبركاته. القوم عن السلام يا أمة السومال من كستوي شوكتو قرب شوك يا قرب شوك با محدوري أباتنا لما قضوا يركع الله نقضب أنو كمثل إنه وطني يا حرمرك بلارنا يكادي سيدا ويقولوا دبتي يا أرما دبتي يا كذهبا يا قضب خلاصنا دولة السومالان iyo maamul xumada iyo burburka baahsanaad wadooyin wadankii bariyahan dambe soo badanayo iyo dacdarooyinka iyo cadaalad darrada badan ay geysanayso labada qodob baan doonayaa si uu taago qodobka ugu horeeya tan horeysiya wadani bariyahan dambe waxa arkayseen oo shaashadaha iyo meediyaha lagala socday horumarka ballaaran ee wafdidii cusbayd ee gudoomiyaha xisbiga wadani oo ku galaabixiyay adduunyada wadano badan fara badan halkaasoo aad moodo 25 sano aan jirnay inaan xusbi gaadhay ama dawlad gaadhay aanay jirin iyadoo la kulmayay dawladaha baarlamaanada oo kula kulmay Ingiriiska Brussels iyo Germany marka waxaad halkaa ummadda Soomaaliya ka aragtaa inay tahay cadceed soo baxday waddanka badan ka bedeli karta hadii ay timaado wadani marka waxaan leenahay ku doorta wadani qodobada faraha badan leh ee horumarka ee waxa weeye ay wadaan abaaraha iyo maxaa la yiraahdaa horumarka iyo waxyaabaha badan ee maanta cadaanka ee iftiimiyeen waxaan waddanka ka gudbayaa inta ay lagu doorto ummadda Soomaaliland cod ku siiyaa inta takale aan taan soo noqdo xagga dawladda waxa bariyahan dambe lagu soo badanayay xirxid iyo caburin iyo maxaa la xagga jugleyn oo waxa weeye marka xitaa ragga qaar xagga jugleynta iyo xirxidka ay diidaan iyaga ku dhawada xilka laga yareeyo waxa la xirxiday oo u dambeeyay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xogayaha garabka dhalinyarada iyo dhalinyar fara badan oo iyana xisbiga wadani metelaysay oo jeelasha ka buuxda bariyahan dambe taasi waxay ku tusaysaa cadaalad darrada iyo caburinta iyo dawladdu inay doonayso inay codka shacabka iyo codka dhalinyarada labadaba ay caburiso oo cid hadasha iyo cid aan dhaqaaqda midna aanay jirin taa waxaan leenahay dawladdu ka duwantoodo waxa weeye ka deyso dadka caburinta iyo maxaa la yiraahdaa xirxirka haddii ay san ku sii socoto ama ku sii wadana de waxa dhici doona maxaa la yiraahdaa mudaharaadyo iyo waxaan dadku aan iska xijinayn iyo dalkuba maanta waxaan ku jirnaa abaaro iyo maxaa la yiraahdaa hawlo badan oo dadku maanta aanay qaadi karayn waxyaabo badan laga fikiro marka waxaan leeyahay doorashada way lagu soo dhawaaxin oo ma harin ummadda waxaan leeyahay waa aragtaan xusbigan iyo dawladdu maanta waa isu eega afarta bilood ee idin haray waxa ka fikirtaan waddanka sidii u badbaadin lahaydeen ama uga bedeli lahaydeen waxa maanta haysata assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا بما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو متان محمد عمر حوي وحقين كصحافة حسب وطني UK marka hore waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo una mahadnaqo isbedelkii ballaarnaa ee hogaamiyaha xisbiga wadani mudane xirsi uu ku sameeyay hogaanka sare ee UK iyo Europe oo dardargelin fara badan lagu sameeyay ee aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan shacabweynaha isbedel doonka ee Jamhuuriyadda Somaliland oo si mug iyo miisaan u soo dhaweeyay wafdigii uu hogaaminayay gudoomiyuhu maalintii Isniintii taas oo sababtay in ay xukuumaddii sas ka qaado xarig fara badan loo geysto saraakiil badan oo ka tirsan xisbiga wadani uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada Axmed Dagax iyo ku-xigeenkiisu iyo tiraba dhowr iyo 20 xubnood oo ka mid ah taageerayaasha iyo xubnaha xisbiga wadani oo jeelasha la geeyay hore waxa uu sii jiray sida uu xamsi sheegayba maxamed sidiiq gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani iyo xogayaha yaasiin oo jeelka loo gudbiyay iyaga oo maxkamad la horkeenin jeelka loo gudbiyay taas waxa ku tusaysaa in xariga la xidhayo siyaasiyiinta midba mid lagu ilowsiinayo waxa kale oo isaguna meesha yimid isbedel lagu sameeyay hogaanka booliska ee gobolka Sanaag si loo helo dad guulwadayaal ah oo u shaqeeya xukuumaddan oo xalay isbedel ballaaran lagu sameeyay hogaanka booliska gabi ahaantiisiba waxa kale oo si xaq darro ah hogaanka looga qaaday
hogaamiyaha howlgelinta ciidanka booliska maxamuud ducaale kadib markii amar lagu siiyey inuu xidhxidho amba uu calamada xisbiga wadani iyo dabaaldegii lagu soo dhaweynayey madaxweynaha mustaqbalka uu is-hortaago la bedelay. waxaa kaloo jirta oo isaguna aad iyo aad aan uga xunahay mujaahidka aadka qaaliga ah yuusuf cabdi gaboobe oo ka mid ah mujaahidiintii SNM ka mid ah qoraalayaasha amba qoraalada tafatiraha haatif oo isaguna isbitaalka ku jira oo ilaa hadda xukuumaddu ay ka indhaqarsanayso. haddii yaraan ku noqdo yuusuf cabdi gaboobe wuxuu ahaa raggii ay ku faani jireen xisbiga kulmiye markii ay mucaaradka ahaayeen, waxayna ogsooneen inay jeel kusoo booqdeen markii uu madaxweyne riyaale uu xidhay jeelka madheere ay ugu tegeen. yuusuf cabdi gaboobe waxa u dooday oo markii dambena xadhigga kasoo daayey Amnesty International. ninka caynkaas kulmiye saa ugu soo dagaalamayay in maanta haatif laga xidho xaqdarro ayaanu aragnaa. waxaanu aragnaa taliyaha ciidanka boolisku inuu u xaglinayo xukuumadda maanta jirta. waxaan usoo jeedinayaa taliya fadal inuu ku koobnaado shaqadiisa uu noqdo taliyaha guud ee ciidanka aanu noqon taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Maroodijeex. habku maanta u shaqeeyana waa habka taliyayaasha ka hooseeyana inuu u ogolaado inay shaqadooda qabsadaan. aad iyo aad baad mahadsantihiin. waxaan leeyahay maanta u daran tahay ninku diirsadaanahay dhibaato kasta oo uu geysto xukunkani, hadday tahay sicir barar, hadday tahay musuq maasuq iyo wax kastoo dhibaato ah waxay faa'iido u tahay xisbiga wadani. guul iyo gobonimo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.